السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب الشرف له وكحرا جرينويس أونلاين أكاديمي جمعة ونكسن بل بعد دون كجوكتان وحن ليا هاي سود هذا هذا وادي أداي فرحتي قلت هاي أنا مركلان كسر مغضو أنا قرره ما أنت أنا عشر عادي أتوقع بدن أن النو ذا سيدو كلا أبديت عصوب وحن ليا هاي ويلكم سود هذا القناة كان هتكبر نسان اللغة الإنجليزية وقتها آدي أدو كمان ويلكم أول okay waxaan rabaa jadwal yar inaan idin wadaago maalin walba oo jimco ah insha Allah sheeko ayaan idin soo gudbin doonaa oo aan ku baranayno luqadda Ingiriisiga maalin walba jimco ah sheekooyin baan idin soo gudbin doonaa insha Allah oo aan ku baranayno luqadda Ingiriisiga are we together yeah so maalmaha kalena insha Allah mar grammar mar tilmaamooyin mar wada sheekeysi insha Allah are we together so arday waxaa jirta aad iyo aad iga soo codsanayeen maartay grammarka tenseska iyo insha Allah so waa idin soo gudbin doonaa sidoo kale koorsadan oo dhameystiran hadda aad rabto insha Allah casharada oo taxana ah oo cashar koobaad koorsada oo full ah hab online ayaa ku bixinaa oo zoom ah macallimiin aad u kala duwan so waxaan leeyahay insha Allah isdiiwaangeliya numberkan hoos ku xusan insha Allah hoosna ku soo qori doono halkaas ayaad igala soo xiriiri doontaan habka koorsada u baxdan ayaa waxay tahay bilow oo beginner ah oo 4 bilood soconayo qayb intermediate ah oo 4 bilood soconayo sidoo kale qayb advanced ah oo 4 bilood soconayo insha Allah so 12 bilood ayuu ardaygu wuxuu nasiib u yeelanayaa in shahaadana uu qaato luqadana uu ugu hadli karo si fasiix ah oo natural ah asagoo aanan wax qasab ah aanan sameynin are we together so wixii faahfaahin dheer insha Allah numberkaas ayaad igala soo xiriiri doontaan ana insha Allah idin faahfaahin doonaa haddaba maanta sheekadeena aan u gudagalno ina marsha sheekaan baranaynaa sheekooyinkana waxyaabooyin badan luqadda lagu bartaa qoraalka lagu bartaa sheekada si ay qoran tahay waxaa lagu bartaa ereyooyin cusuban qaabka sheekada u dhacayso oo cilmiyan okay ya isku xirkaas oo dhan sheekada aan baranayna marka maanta ciwaankeeda waxaa yiraahdaa I can never find shoes for my feet. I can never find shoes for my feet. يعني ma heli karo cago yani ma heli karo kabo oo lugteeda la eg. I can never find shoes for my feet. I can never find ma heli karo shoes kabo for my feet oo lugahayga aan xirto and maybe qof caga waaweyn waayo soo ma jiro qof intuu dukaan walba tago oo kab intuu isku soo cabiro kabti weynayo okay yeah so ciwaankaas marka aan baranayna maanta so sheekada marka hore waa akhrinay English ahaan aan ku akhrinay English ahaan aad u dhageysanaysaan then kadib waa macnaanaya so markaan English ahaan aan ku akhrinayo waxaad la rabaa inaad ereyada dhawaaqooda aad dhuuxdaan good One of Harry's feet was bigger than the other. I can never find boots and shoes for my feet, he said. Said man. Okay, said. He said to his friend Dick. Why don't you go to a shoemaker? Dick said, a good one can make you the right shoes. Shoes. Okay, good. I have never been to a shoemaker, Harry said. Aren't they expensive? No, Dick said. Some of them aren't. Are not. Some of them are not. Aren't. Some of them aren't. There is. There's a good one in our village, and he is quite cheap. There is a good one in our village, and he is quite cheap. Here is his address. He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry. Harry went to the shoemaker in Dick's village a few days later, and the shoemaker made him some shoes. Harry went to the shop again in a week later and looked at the shoes. Then he said to the shoemaker angrily, "You are silly man.
I said make one shoe bigger than the other, but you have made one smaller than the other. Are we together? That's good. So hadda waa macninaya sheekada aan maanta baranayno waxaan dhahay ciwaankeeda waxaa la yidhahdaa I can never find shoes for my feet. Ma heli karo wax kaba ah oo la eg lugahayga my feet. Okay, feet waa plural waa jamac my feet. Ma heli karo wax kaba ah oo la eg lugahayga. Okay, sheekada waxay leedahay one of Harry's feet mid ka mid ah cagaha Harry's estas apostrophe ayaa la yidhaha apostrophigaas waxay tusisaa lahaansho possession ayay tusisaa. One of Harry's feet mid ka mid ah lugaha Harry uu leeyahay was bigger than the other. Waxa ay ka weyneed midda kale ayay ka weyneed. So lugihiisa ayaa kala dheeraayeen oo lugihiisa kala weynaa. Okay, yeah. So caga isla eg maysan ahayn. Okay, I can never find boots and shoes for my feet, he said to his friend Dick. Ninka Harry ayaa wuxuu yidhi I can never find ma heli karo boots waa bootska korka dadan and shoes iyo kabaha for my feet lugteeda uma heli karo. He said saas ayuu yidhi to his friend Dick asagoo u sheegayo saaxiibkiis Dick ayuu ku yidhi yani ma heli karo wax kaba ah oo bootka iyo shoes waa isku mid boot waa nooc kabaha ka mid ah shoesna waa maartay waa yani magac guud waa kabo oo dhan waa boots laakiin waa nooc kabaha ka mid ah. Okay, so ma heli karo wax boots ah iyo wax kaba nooc walbo oo lugteeda la eg ma heli karo. He said saas ayuu yidhi to his friend Dick saaxiibkiis Dick ayuu ku yidhi. Why don't you go to the shoemaker? Dick said. Saaxiibkiis Dick ayaa marka wuxuu ugu jawaab wuxuu dhahay maxaadan ugu tegi karin ninka kabaha sameeyo. Yani kaliya ma ahan in aad kaba samaysan aad suuqa ka soo galato laakiin waxaa jira nin kaba sameeyo so maxaadan ugu tegi karin ninka kabaha sameeyo. Dick said. Dick saaxiibkiis Dick ayaa saas yiri hadalkan ayuu yiri. A good one can make you the right shoes. Mid fiican oo kaba hagaajiye ah ayaa wuxuu ku sameyn karaa kabihii rasmiga ahaa oo lugahaada la ekaan lahaayeen ayuu ku sameyn karaa. Okay, I have never been to a shoemaker, Harry said. Harry ninka la yiraahdaa wuxuu yiri waligay ma aanan u dhaqaaqin ama ma aanan aadin nin kaba sameeye ah. Shoemaker waa ninka kabaha sameeyo. Aren't they very expensive? So Harry ayaa wuxuu yiri aren't they very expensive? Nimankaasi miyaysan ahayn kuwo qaali ah yani kabaha ay sameynayaan qaali ku sameeyaan miyaysan ahayn. Aren't they are not okay aren't they very expensive kuwaas miyaysan ahayn kuwa kabaha wax qaali yani si qaali ah u sameeyaan. Okay, wuu jawaabaya wuxuu yiri no. Dick said. Dick ayaa wuxuu yiri no maya yani sheekadan waa sheeko conversation ahaan ah waa oo qoraal ahaan loo bedelo. Okay, yeah, so say u dhaceyso ahaan baa maarta loo soo guuriyay. So Dick ayaa wuxuu yiri no ayuu yiri some of them aren't kuwa ka mid ah kuwaasi kabaha tolaan qaali ma ahan. Some of them aren't kuwa ka mid ah qaali ma ahan. There is a good one in our village. Waxaa jiro mid kaba tolo ah oo aad u fiican xaafadda aan degannahay and he is quite cheap. Aad ayuuna raqiis u yahay. He is quite cheap. Quite kaani waxaa qiyaas waay. Quite cheap. Aad ayuu raqiis u yahay. Waadoo dhahay very cheap oo kala dhaha waay. Quite cheap haddaad tiraahdo waa very cheap adoo dhahay kale. Here is his address. Waa kana ciwaankiisa. He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry. Ciwaanka ayuu wuxuu ugu qoray qadaas ayuu ugu qoray waraaqad wuxuuna siiyey Harry ayuu siiyey kii lugihiisa kala dheeraayeen. Harry went to the shoemaker in Dick's village. Harry wiilka la yiraahdo oo cagihiisa kala dheeraayeen wuxuu u dhaqaaqay ninkii kaba tolaha ahaa oo kabaha sameynayay kaasoo ku yaalo ama joogo Dick xaafadda uu ku nool yahay. A few days later maalmo yar kadib and the shoemaker made him some shoes. Ninkii kabaha sameynayna kabihii uu u sameeyay Harry went to the shop again. Harry wuxuu u dhaqaaqay dukaanka ayuu u dhaqaaqay a week later isbuuc kadib and looked at the shoes wuxuuna u dhaqaaqay in uu maartay kabihii soo eego kabihii loo sameeyay. Then he said to the shoemaker angrily wuxuuna ku yiri ninkii kabaha u sameynayay angrily asagoo xanaaqsan you are silly man waxaa tahay nin aad u qaab daran. Silly waa qof qaab daran. You are silly man waxaa tahay nin aad u qaab daran. I said waxaan aniga kugu dhahay make one shoe bigger than the other waxaan kugu dhahay kabaha aad tulaysid
mid weyne midda kale ka weyne, bigger than the other, midda kale ka weyne. But you have made one smaller than the other. Laakiin waxaad samaysay mid baaba sii yaraysay oo tii kale ka sii yaraysay. Meesha aad yani aad qiyaasta aan kuu sheegay aan midaan aan kugu cabiray aan ku dhahay tan midda kale aad samaynaysa tan ka weyne waxaad samaysay tii aan cabir ahaanta kuu siiyey baaba ka sii yaraysayba meesha aad ka weyneyn lahayd. But you have made one smaller than the other. Are you together? That's good. So marka sheekada saas ay u dhawaysay Englishka ku qoran tahayna waa iska English fasiixa oo qofku fahmi karo. Kaliya waxaa muhiim ah sheekada say u dhawaysay isku xirkeeda inaad keeni kartid imaanaheeda uu ka dhaadhici karo. That's so important. Are you together? Yeah, mashallah, that's good.